haddeer maanta waxa u joogna waxay tahay nin xanuunsan oo maxaa la dee wax haysanin oo maxaa la dee oo like oo isbitaalka uu ku jiro bilaal hadda lacagaa laga rabaa runta daadin sheeg for reality lacagaa laga rabaa lacagtaasna hadda lama hayo horta muhiimadda ugu weyn waxay tahay lacagtaasi lagu daaweeye lama hayo wallaahi been idin sheegay so please waxa u ordeen hadda waxay tahay dee inaan lacagtaas deynta aan iska bixino wixii kale dee ilaaha loo qabaa insha allah waa ogahay inuu ilaahay wax walba furayo sababta qofku wanaag sameeyo ilaahay wanaaga uu sameynayaa waa idinka codsanaya dee mar walba codsi waayo qof alaal qofkii wax heeyo si walaaltinimo soomaalinimo maxaa la dhalinyaranimo like for example qof walaalkaaga dhalinyaro hadduu dhib haysta waa u danqanaysaa dee idinkana u danqada ilaahay maxaa la si anagana awaalkiisa nasiinayaa marka codsi ay tahay horta milyanka aan sheegteen aan gaarsiino insha allah 600 dhiman 400 dhiman 400 waxaan rajaynayaa dee qof Soomaali ah inuu buuxin doono mise dhalinyarada Soomaalida wiili gabar waxay noqoto codsi ay tahay maanta inaan u buuxisaan rajaynaa insha allah marka bilaalna waa caafimaada insha allah sababtoo idinka buu duceeyba Soomaalida dee waxa waaye dadka ugu qalbi fiican because dee walaalkiisa amna qof walaalkaaga hadduu dhib haysto mar walba haddaadan waxaynin dee waa la oynaysaa marka insha allah waa maasantiin aada inka mahad celinaya sababta ducadiina wax walba ilaahay horta uu ku soo gaarsiiyey bilaalna waa caafimaad qaba haddeer saan rajaynaa insha allah laakiin sidee lacagtaas isbitaalka deynta aan iska bixino insha allah idinkaana bixin karo dhammaanteena waa isla joognaa marka nacaawiya marka codsi ay iga tahay nacaawiya please aad u mahadsantahay Bachinho dhammaantiina waa mahadsantihiin milyanka bilaal gaarsiiya waa sax sidoo sheegay Bachinho isbitaalka uu jiifay bilaal lacagtiisa waa laga rabaa waxa uu sii dheer daawooyin waxa uu sii dheer inuu waqtiga aado oo caafimaadkiisa soo kontaroolo dhunta waa halis marka caawiya milyanka gaarsiiya una soo duceeya insha allah in ilaahay caafimaad taama siiyo mar kale waxaan idin xasuusinayaa asxaabta in 1 milyan bilaal caaw uu u baahan yahay oo gifti ah 600 kun waad u dirteen 400 kun dhiman ummadda Soomaaliyeed dhan waxaan ka codsanaynaa in bilaal ay u kacaan markuu caafimaadka qabay oo xayiga oo ahay wuxuu qaban jiray waad ogtihiin dhalinyaro badan oo aniga aan koob ka ah bilaal waxaan u qirayaa inuu naga fiican yahay sababtoo ah bilaal wuxuu aaday gobollada Soomaaliya gobollo kamid ah oo ay joogeen dad tabaalaysan waa uu caawiyay bilaal sidoo kale waxaan ku ammaanayaa oo ku ammaanan yahay oo ku sharfan yahay oo aan isdhihi karaba ilaahay wuxuu ugu gargaaro ay qayb weyn ka tahay waa in aamina bilaal waa samafale aamina waa nin dhalinyaro ah dalkiisa aan ka tagin waa nin muhiim u ah bulshada Soomaaliyeed waa nin tusaale wanaagsan u ah dhalinyarada marka bilaal oo kale waa inaan ilaashanaa waa inaan caawinaa waa inaan garab istaagnaa waa nin samafale ayuu walaalka bilaal ayuu walaalkay aad u mahadsan tahay walaalkaysa Kariimaajiina asna aad u mahad celinayaa sidoo kale walaalkay Bachinho sidoo kale waa u mahad celinayaa dhammaantood dad kale oo fara badan oo ayagana dadaalo sameynaayo oo walaalkay team jaamac uu ka mid yahay rag yaal fara badan oo inta aan ku soo koobi karin ayaa jiraan dhammaantood waxaan leeyahay waa mahadsantihiin dadkana daawanayo ee waqtiga nagu bixinayo laftirkooda ayaguba la'aantood intaan lama helayn oo sheer gareynta iyo shaashada taabashaalka ayaa intaan soo gaarsiisay muddo 2 saacadood ayaanu halkaan ku jirnay oo aan sugaynay inaan meeshii aan rajaynayna aan gaarno ma awoodno inaan caawa aan wada gaarno laakiin in dhow ayaan rabnaa inaan gaarno oo 1 milyan ayaan rabnaa inaan xirno insha Allah daalino dhammaantiin waxaan idin leeyahay dhammaantiin Allah idinka aqbalo ducadiina ilaahay ha ii aqbalo ilaahayna ha ii soo dejiyo caafimaadkayga oo dhammaystiran alxamdulillah intaan bad qof walba ma hesho oo ducadan Soomaali walba ma helo
intaanba waxaa helo qof oo ilaahay uu jecel yahay, dadkiisu ay jecel yihiin, waalidiintiisa iyo walaaladiisa ay jecel yihiin. waan rajaynayaa insha allah in aan anigoo caafimaad qaba oo intaan ka qurux badan inaan idin soo hor fariisto. ma awoodo inaan kaamirada furto. waa jeclaan lahaa wejigayga anoo faraxsan inaan idin tuso. waa jeclaan lahaa anoo wejigayga dhoolo cadayna inaan idin tuso, laakiin ma awoodo inaan haddana dayacayga iyo ilaahay kuma soo daraadee xanuunkayga aad sii aragtaan. waan rajaynayaa insha allah codkayga inaad ku qanacdaan. waan rajaynayaa insha allah inaad intaana aad ku niyad samaataan insha allah. beenta iyo qubxiga iyo mala awaalka iyo waxyaabaha kale meelaha la wadwadana aad ka digtoonaataan insha allah. waa mahadsantihiin. aada u mahadsantaha bilaal. dadka facebookyada beenta ah samaystay ee bilaal ka been sheegaya ee dhahaya bilaal baa dhintay, bilaal baa xaalad xun ku sugan, ilaahay ka baqa, ilaahay u laabta. maxaad ka faa'iidaysaan hadda bilaal hadduu dhinto? haddii dib uu gaaro ma lacag baad ku helaysaan? ma darajaad ku helaysaan? maxaad adinku u shaqaysanaysaan camal shaydaan? ilaahay ka baqa. ninkan maalintii uu dhimo lahaa ilaahay baa qoray. 2 xabadood baa lagu dhufto mana dhiman. sababtuu dhimo waay ma taqaanin. tiisaan dhammaan. anigaan hadda idinla hadlayo tayada markay dhamaataan dhimanaa. baajinho markii tiisa dhammaato dhimanaya. yaxbur sidoo kale. marka adinku dembi ha shaqaysanina. hana ka nixinina ninkan waalidkiisa iyo saaxiibadiisa iyo dadka taageeray iyo dadka jecel ha ka nixinina. ninkan keliya waalidkiis ma taageeraan ee waxaa taageera dadka masaakiinta ah ee tabaalaysan ee uu caawiyey. waa ay jecel yihiin. maxaad uga nixinaysaan dadkaas? maxaad dadka u dhibaysaan? ilaahay ka baqa. ninkan waa nin Soomaaliyeed, waana madaxweynaha dhalinyarada Soomaaliyeed. marka adinku u duceey kara maxaad u habaaraysaan? taas haddaan ka gudbo, caawa 1 milyan bilaal bulshaawi oo gifti ah hala dago. hadda 600 iyo 8,000 oo qof. waxaa u baahnaa dhaqaale daraa jirto. haddaan runta idin sheego, dhaqaale meesha ma yaalo. wax hadda uu hayo ma lahan bilaal. hal qof keligiisna ma qaban karo. waxaa hadda arabna inaan u samayno. waa idinka codsanaya dee idinkoo walaaltinimo si soomaalinimo walaaltinimo waxaa idinka codsanaya dee inaa iscaawino dhalinyaranimo. sababtoo dhalinyarada ayagaa isku baahan, ayagaa mar walba isa caawiyo. qof kale hadda noo maqan ma laha, ilaaha noo maqan. laakiinse anaga isa caawinaynaa. bliis aan isa caawino, na caawiya. idinkana ilaahay idin caawiyo. walaalkeena shaqo badanu noo galay. biyo la-aan uu seexanaya. waa aragteen gaajuu ku seexanayay. roob guri meel bannaan uu seexanayay. wuxuu caawinaya Soomaali rafaadsan. marka maanta tawkidiis waa insha allah. waxaan rajaynaa dee in hadafkeena aan gaarno. waa idinka codsanaya inaadna caawisaan si oo si fiican oo qurux badan. haddeer waana caawiseen. marka bliis waa idin baryaa iscaawiya, na caawiya. okay aad baa u mahadsantihiin dhalinyarada Soomaaliyeed oo walaalkeen bilaal bulshaawi garab istaag u muujisay, walaalnimada tustay, kalgacaylka tustay inuu garab leeyahay, tustay inuu bilaal maanta haddii wax ugu soo baxdo wax ka heli karo. aad baa u mahadsantihiin intiina wax soo diraysaa. dhalinyaro bilaal bulshaawi baajino suu inii sheegay, saan inii sheegnay maanta oo dhan waa ka warqabtaan. bilaal waa nin dhalinyara oo dalkiis jooga, oo dad badan caawiyey, oo dad badan garabtaag muujiyey, oo dad badan abaareysan hadda ka hor intuu halka uga baxay cidla u seexday, bilaan u seexday, ii sheeg qorax u istaagay. marka dhibka soo gaarayna waa ka warqabtaan. waxaa inaga codsanayaa walaalkeen bilaal bulshaawi inaad 1 milyan caawa ha xidhaan. gacmo shirbi wax ku gooyaan. 1 milyanka caawa inay xidhaan baan rajaynaynaa. waan xiraysaan inay ka badatana waa dhici kadhaa. marka waxaan inaga codsanaynaa walaalkeen bilaal bulshaawi inaan caawa garab istaag u muujino, aan garab istaagno. telefoon aan jaadir gashanaa. taargetka caawa waxaa waaye 1 milyan. hadda 600,000 oo gifti aad u dirteen. 400 dhiman. gacmo wada jiray wax ku gooyaan. hal mar waa shamsi ku qaada. bilaal caawa ka farxiya. baajinho siduu sheegay, bilaal pressure dhaqaalaha dhankiisa ha saaran maadaama isbitaal uu ku jiray in muddo ah. soo hal mar aan u kacno walaalkeen insha allah way u fududaanaysaa. shalaabo arkayaa wuxuu dhahayaa baajino aan saragno.
Shalaabo waa ninkii oo markii oo awaaraha lacagta u aruurinayay lacag badan bixiyay hadeerna wuxuu dhahayaa Banjino aan sarno maybe inuu joogo amleena magaalada inuu ili joogo marka Shalaabo diyaar waa is arkeena mid kale Soomaaliyeed maxalla siyaada waxa dhiman 400 dhiman 400 waxa rajeynaa hal qof inuu bixin karo waana rajeynaynaa insha Allah sababtoo ah qof baa waxa bixiya 1 milyan 3 milyan marka insha Allah qof alaalan